kulan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada qaybtii labaad ee sheekadii halkudhigeedu ahayd gar jacayl ha la qaado. gabadhii Faadumo ahayd waxa ay ku jirtay jawi bariga dhexa, meel aabaheed baa ka haystay, meelna wiilkan adeerkeed dhale aad moodo in markaasi lagu suntayba. markuu arkaaba daba taagan sidii loo yiri adaa lagu siiyey, ayana loo yiri walaalkaaba lagugu darayaa, ayadana ay u diiday isna ugu ogolaaday. fikirka kale ay qabtay ayaa waxay ahayd wiilkii ay nafta siiday aadkan ay u jeclayd oo ay baryahan weyday, wixii kale xanibay iyo wixii jiraaba ha ahaadane. goor dambe ayuu telefoonkeedii soo garaacay. teleefoonkii hadday fiirso waa lambarkiisii, sida markaasi tuka caana helay. nasiib badnaantiisa ayay mar kaliya booday wiilka gees kaga istaagtay. caanihii daate, laakiin hadal baa meesha yeelay. waxa uu ahaa hadalkuna sidan: Faadumo, waan jeclaa xabiib macaan inaan ku imaado, laakiin waxaa jira xaalado badan oo ii diiday inaan ku imaado. gurigiina waxaa runtii ku geedaaman dhagaxyo badan, ciidna waa ay kasoo horeysaa, inta badanna wadooyinku waa ay xirnaayeen. runtii meel aan kuu soo maro ayaan waayey. jacaylku waa halkiisii, kalsooni ayaa naga dhexaysa xabiib macaan, waana ku jeclahay. sida ugu dhaqsiyaha badanna inaan kugu imaado ayaan rajeynayaa. intaa goortii la yiri ayay la hadashay una sheegtay inay mar walba sugayso. waxay kaloo dareensiisay in guriga xaalad ay ka jirto, wiil lala rabaano uu guriga joogo, indho kalena aan lahayn, ayada oon mar walba albaabka ay ka baxaysa iyo meesha ay maraysa kaliya fiirinayo, ayadoo arrinkaa ku calaacalayso. waxay tiri: haa xabiibi macaane, waan dareemayaa xaaladda jirta, anigaba waan ku jecelahay. kalsoonida ayaa ah mid aan markaa buraynin. kalsoonida aan kugu qabana biyaha badda waa ay ka badan yihiin. xabiibi, waxaa jirta arrin kaleeto oo guriga ka jirta, mid reer baadiya oo aabahay ila doonaya, laakiin aniga adigan ku jecelahay, ma doonayo qofkan qalbi dhagaxa ah. intaa goortii ay tiri telefoonkuna ay ka hadlaysay ayaa dhabarkeeda dambe la soo istaagay. hadday kor u fiiriday waaba aabaheed. teleefonka ay ku hadlaydo inuu odayga maqlay ayay mooday. beerka ayaa loo dhaafay, cabsi ayay dareentay. aabbo, hooyo, eedo, aayo waxbay isku dardartay oo aan la garan karin, ayadoo lafteeda xataa ay ku yabaashay. kuwaasoo ahaa eedo, faysal, adeer, aabbo maxaa jiro? maxaa kugu dhaca aabbo? laadha qur-aan baa lagu saarayaa. maxaa aabbo, maxaa aragte? ma kala orodki magaalada adna maskaxdaadii baa kala orod gashay, magaaladii baa kala ordaysay, adna miyaad kala oroday? aabaas tuugmiya maalin kasta wax u gaata maasi, markastan telefoonku hadlaa dhabarkeenu soo istaagaan. na kor u hadal. maxaa dhahda aabbo? waxaan ku yiri telefoonka ma awoowaha baad kala hadlaysay? waxaan la hadlayay gabar saaxiibta gabar baad la hadlaysay? aabbo, gabar Faysal la yiraahdo ebedkiima maqal. maya, Faysal la dhahaa. Faysal adaa u moodee? yaa Faysal la dhahaa aabba, adaa Faysal moodee. war waxay rabtaa ahaatee kowdhe duqaana siyana daba dhigay. laakiin waxaan kuu sheegayaa muqdisho waa iska warayda. haye, kii mucaarada iyo kii mucaafada waa is og yihiin. haye, ma fahmaysaa? maxaafid iyo maxaa ka wadaa? ma ku fahmin. war jid kastoad maraysaa qodxaan baa talle, lugta meeshaad dhigaysaa ka fiirsan ku leh. haye aabbo, haye. haddaadan tallaabada ka fiirsanna waxaa la yidhi cagtii joogsan weydaa mar bay ceeb la kulantaaba leh. aabba, maxaa waad waxa ka hadlaysid? maxaa ii sarbeebaysaadi? sidii fiidmeerti baad halkan ku hor naa wiilkan walaalka maxaad u dhinac maraysa? horta aabba, adi kan maxaa igala doonaysaa aabba? adi ma inacda aabbo? maxaa kugu dhacay? ku socda hadalkaa tiri. aabbo, waa nabad baan ku yiri, wax dhibi ma jiraan. anigu waxaan ku iraa tallaabo dheerayn. haddaad tallaabo dheeraysana anaa soo gaabinayo. bahal jeeba la yidhahda intaan qaato. aabbo, kaa dadka waalanaa lagu xiraayo, annaga ma anagaa waalan. madafiyo waa fiyooba aabbo. ma adiga hadda aniga eedi ugu wacaye? maya aabbo, waa kaa naxay, macnaha ma kuu jeedin soo maaha. mana iga naxaysaa? may nixitaan oo aan kaa naxayo adiga maaha aabbo, laakiin waan ku fahmi waayo maano. haddaa tuuga markuu wacday haddii la qabto waa naxa soo maha. tuug maaya aabba, gabadhaadi baan ahay. maxaa kugu dhacay? adiguna Faa'ise iyo Faysal dhexdooda kala sanyaalinaysa. Faysal waa wiilka aabba, sodogu noqon rabtida, midkaan dhagaxa nagala daba ordaysaay. Faysaduna waa adiga. may baba qoslaysaaba. naadha hooyada ay adiga ma sheekaysataan miyaa? hooyaday hoolay ku mashquulsantaha, annagana waxbarashaa ku mashquulsanee.
goorma isqabanaa hooyo adaaba iga daran ba aabo dhabarkayga taagan markaan telefonku hadlay waxaa codkaaga la waweynaadaad qabtaa ee mid baan kuu sheegay waxbarashada waay codkan wuxuu u weyneeday wiilkan fad ama ha fadin wey waa lagu fadsiin fad ama ha fadin maaha aabo adi dabaal maanta horta aabo waxaan rabnana kuma dhihi karna aabo reer magaalna waata maxaa kaa qaldan aabo midkan dhagaxa ee soo taagan ee cirbuu booleen suu geella u raacay maad nala doonaysa aabo waxaan ku yidhi aabo geel horta soomaalidu waxay ku faanta wey laakiin waxaa laga faana magaalada waa yeelana ma aragtay geel weligay ma aragani ruux daadihinayana ma doonaya aabo maxaa kugu dhacaaday magaaladan soo dhex maray baaburka gadaal fur lugaha xagga ka wareeji digsigan soo rog halkan fiiri wabtina waa socotaa aabaad marba filin ii saaraadi marna filin waxaa ii saartaa midkaan reer baadiyaa ah marna filin waxaa ii saartaa magaalada way xiranta aaba ujeedkaaga caddeeadi ujeedkayga wuxuu yahay jirin soomaaligu inuu shaqeeyo dollarkan baasina wareeriyana naga haro qaran haddaanu lacag lahayn qaran haddaanu lacag lahayn astaan weynu ka maqan weye meel walbaa kunkiibaa iska yaallo aad moodo inuu tacbaan yahay kow dhe aniguna xisaabtan baan ku jiraaye waxaan ku eri aabo faysal iyo shuqul waad kala saaraysaa faysal waa reer magaal muqdisho jooga soo maaha anigu kala maaqan ciyaalkan jeegada xirtayo sarwaalka aad moodona qayb ka mid ay faydantaada aniga kuwa ma doonayo waxaas waa laga dayn karaa anigu midkan walaalkay dhalan aqaanaa originadiis ma fahamta walaalkay waayo aaba kan caley kulaal waa baxay kow dhe garabkaagan ku yiri gabadhayda adiga waxaan ku yiri walaalkaa ka fikir aabeen ayaabuu leeyahay wallaahi bilaa waxaan sameyna ma naqaano faysalna waan jeclahay aniga goortii uu ka tegay ee sii dhaqaaqay ayaa mar qore waxaa dhagaheeda soo gaartay hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa jacaylkana waa haya heestaas ayaa dhagaheeda kusoo dhacday taasoo ahayd hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa aydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa aydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga goortii ay heestii dhammaatay axbaarna ay dhagaysatay ayay dhinaceeda firisay waaba kii adeerkeed dhalay oo misna meesha taagan indhahana aad moodo in markaasi giirka laga bixiyo oo siduu gabadha u eegayo hal mar intay firisay iyadoo weliba dhoolla caddaynayso rabta ninkan inay sirto ilaan horaa loo yiri sirnaag lagama salgaaree ayay ku tiri waa wuxuuse hore uga baran maanta waa saaxiibkaaye seetaa in adeerke aabay yaabo maraysaa beledkan u socdaa sarwaaluunkaan rabaa inaan soo gato adi markaan ku arko codkaagaaba hadalkaaga jidaadaaba gashanaaba ilaahay amarkiis xaa sarwaaluunkana xaa la dhahaa sarwaaladan wiilashaan wadwataan ma arkin miya adi reer baadiyo war kaas waa laga tegay haye waxaan ku idhi adeerkay waa kuu qayliyey waa maqlayay adiga dhegaysa le aaba markuu galaal iga soo mara maaragta on telefoonka ku hadlayo dhegaysa le adi waardiye camal adna i fiirsa le adna horta waxaan ku weydiiyaa aniga xaa igu diiday horta sukan raabina saaro waa dhadhan waa laftarkiisa waa iska dejinaya qayla wax ma lagu keeni kare horta kaale abuu kaale horta kaale wax ku sheegaa maante aniga ha kaalin soo fariis kaale inteen fadhiisaa halkan soo fariis xebo ayaa naga dhafa baay mahan ma fadhiisa kare waraadi ani waa isla dhalanay horta kaale maanta qorshaa ku haaya kaalin soo fariis riiraxyaa igu kacaysa maad fadhiisa maaya sheekadayda iyo shaag shimaan isguursayna oo aroos noola dhigaa gurigan weyn oo adeerkay ii dhisay aan dhinac ka degayna badarkanna waa iska cunaynaa dad kaleba waa cuno waayaan war kaale adi badarka meeshaa rabtid ka dhow ma gaste kaale sheeka ku haaya adi horta warkayga maqal gurigan nina iskale xoolaha adi tacbata miya adeerkaha iskale waxaa tacbataa lagu faanaaya horta kaalin soo fariis sheeka ku sheegaaye qalbi dhagaxa iska daaya kaale horta gabar caqli badanaa tahay haye
aniga inaan wax kuu sheegaan rabaa adna inaa wax ii sheegtaa rabtaa wartaydaa kutayda ran ninkaan wax aniga waxaan rabaa inaan idinku guursada baabuur ina tarayal ii kaa saaro oo 3 habeen iyo 3 maalin aan tuuladii waa yaala aan usii soconno oon tuuladu ku geeyo oo mahaas ku dejiyo acuudu billaah lo'na waa joogtaa geelna waa joogaa erina waa joogaa oo subagaan noo ruuxe gabar qurux badanaad tahay mahaasaa jooge gurigaasaa ii ilaa markii subag si loo ruux maa naqaana anaga naga celish waa lagu baraa me warkaas iska dhaafay fiir ani walaashahaya ah ma fahamtay sheeka ku hayaahe ani ninaan jeclaha aabadan ninaan jeclaha aan dhahana aduu ila kaa rabaa marka waa ku baryaa walaashahaya ahay ani adima isguurso korno habartaha ii sheegtay gabartayda nin kaley rabtaa hay ii tiri hooyo iska dhaaf adi ani adaa saaxiibeen horto kaale adoogana waa ii sheegay wuxuu yidhi gabartan shukaanso nin kaley rabtaa adi fiir ay dabaal maanta horto adi qofaa jeceshaha ma rabtaa in inta lagaa celiyo naa kaleeto laguu guuriyo horto adi dabaal maxaa iskaga dhigay horto ani adi waa saaxiibeena walaalaa nahnay wax isla dhishta waxba ma dhaano ma fahamta adi marka iga bootin noo saaxiibo adoogan maskiinka baasidiisa rabtaa nin ciyaala suuq inaad jaabka ugu shubto adna oo kugu darsado maxaa kaa gala adi taas adi maadaa lacagaa soo shaqaysata dhididkaaga miya adi maxaa kaa gale sheekadoodu waxay ahayd mid markaasi muran badan dhalisay oo dhinacyo badan markaasi taabanaysay cabaar baa la wada hadlay wax is-afgarasho ah oo markaasi la gaarana ma aysan jirin gabadhuna aad ayay markaasi usii fiirinaysa ninkan iyo hadallada sida uu u kala dhigdhigayo wax badan baa ku qarsanaa laakiin ayadu ma aysan ogeyn ninkan ay moodaysa inuu reebaadii yahay ee guriga joogo ee odagan adeerkiisa meesha la joogo wax badan baa ku qarsanaa laakiin ayadu waxay unu haysatay sawirka ay haysataa wuxuu ahaa inuu yahay ninkan nin reerbaadiye ah laakiin ninkan wuxuu ahaa nin ujeeda badan la yihahdo ujeeda badan waxyaabo badan ayuu markaasi baadigoobkooda uu ku jiray kuwo uu hore usoo laqay iyo kuwo kale u rabaa haddaba inuu qaato intaba sheekadiisu waxay ahayd kuwo markaasi wax badan aan laga fahmi karin qofkii si weyn u darsan maahina goor dambe ayay gabadhii guriga iyadoo tartiib u socoto qolkeedii isaga laabatay iyadoo weliba calaacalayso kana fikirayso halkii ay sheekadan ay dubaha dhigan lahayd sababtaa way aragtay in aabbana soo taagan yahay hooyadeedna aysan hadli karin oo ay odaga ka baqayso kanna uu soo taagan yahay ee waa ku rabaada un ku hayo ayana ay meel kale ay rabto laba kala bariday kala warla qolkii goorta ay gashay ayay bilowday inay calaacasho ayadoo dhahayso